saacadihii la soo dhaafay magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya waxay noqotay meel indhaha lagu hayo marka la eego geedi socodka siyaasadda Soomaaliya. Mas'uuliyiin kala duwan oo ka kooban dhinacyada saddexda ah ee ku midoobay golaha mustaqbalka ayaa halkaasi gaaray. Ujeedadooda waxay tahay in ay ka arrinsadaan baaqa ka soo baxay dowladda federaalka ee ku aadan fidinta gogosha wadatashiga kaas oo golaha xukuumaddu ay ku dhawaaqeen ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barrana uu fariintaasi u diray isagoo meel marinaya dalab ka yimid madaxweynaha Soomaaliya. Villa Soomaaliya ayaa hore uga jawaabtay baaq ay soo saareen golahan shirka ay ku yeesheen magaalada Kismaayo oo ay ahayd in 20 January dowladda ka hor ay ku dhawaaqdo gogol qaran oo looga arrinsanayo jihada siyaasadeed ee waddanku aadi doono. haddaba iyadoo arrinta laga jawaabayo golahan saddexda dhinac ka kooban waa madaxda maamul goboleedyada Puntland, Jubaland iyo waliba golaha samata bixinta ayaa gaaray magaalada Nairobi. dadka halkaasi ku sugan waxaa ka mid ah Saciid Dani oo Puntland hogaamiya iyo sidoo kale madaxweynihii toddobaad ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo ra'iisul wasaarihii Soomaaliya ee hore Saacid oo isaga hogaaminaya xisbiga midowga heybad qaran. saacadaha soo socda kulamo ballaaran oo xasaasi ah ayaa dhici doona. dhinacyadan sida aynu xogta ku helayno waxa ay ka shiri doonaan sida looga jawaabayo baaqa ka yimid dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ay aaminsan yihiin in loo soo marsiiyay channel hoose oo halka ay ka filayeen ka hooseeya sida ay tilmaameen. labadan dhinac ama dhinacyadan saddexda ah ayaa ka doodi doona qodobo ah in guddi farsamo loo diro Muqdisho kaas oo kaliya kala hadla dowladda federaalka ee Soomaaliya arrimaha doorashooyinka. halka dhinaca kalena ay suuragal tahay in marka dhinacyadan ay isla faguraan inay Muqdisho yimaadaan oo ay hor fadhiistaan madaxweynaha dowladda Soomaaliya. laakiin warar kale oo soo baxaya ayaa tilmaamaya in madaxweynaha guddiga dastuurku uu u diray in cutubyadii ka haray dastuurka si degdeg ah loo hirgeliyo oo baarlamanka la horgeeyo kaas oo ah waxa dhinacyadan ay horey u diidanayeen. haddii ay taasi dhacdo ma muuqato rajo ballaaran oo laga filayo inuu ka soo baxo kulankan. hase haatee dhinacyada mucaaradku waxa ay doonayaan in la galo doorasho waqtigeeda ku dhacda bisha May ee soo socotana 15keeda si rasmi ah waddanka looga aado. lama oga nooca doorashada ee la aadi doono iyo waliba mucaaradku waxa ay banaanka keeni doonaan oo la xiriirta qodobka ka hor imaanaya kan doorasho ee madaxweyne Xasan Sheekh iyo Villa Soomaaliya ay doonayaan oo ah doorasho qof iyo coda. arrimahan oo dhan waxay ku soo aadayaan xilli Soomaaliya ay ku jirto marxalad adag oo xasaasi ah oo la xiriirta kala qaybsanaan siyaasadeed oo gudaha ah iyo waliba dowlad ku aadan gobonnimada oo waddanka ku soconaya iyo wadajirkiisa oo iminka dowladaha qaar ay doonayaan inay weeqaan. hase haatee dowladaha saaxiibka la madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku cadaadinaya Villa Soomaaliya in mucaaradka gudaha ay soo xalliso si cod midaysan oo Soomaalidu leedahay loo helo. hase haatee mucaaradku oo qudhooda doodahooda doonaya marka hore inay ka soo heshiiyaan haddii ay la yimaadaan cod midaysan dhinacyadu waxay geli doonaan wada hadallo adag. lama oga in hogaamiyaasha mucaaradka oo sidooda u midaysan ay xamar yimaadaan. dooda ugu ballaaran oo ay mucaaradku qabeen hore waxay ahayd in ay sida ay ka yeelayaan in Axmed Maxamed Islaam Madoobe oo ah madaxweynaha Jubaland oo isan dowladda dhexe aqoonsanayn uu magaalada Muqdisho yimaado iyo in Villa Soomaaliya lagu cadaadiyo marka hore Axmed Madoobe inay si rasmi ah oo dhameystiran u aqoonsadaan. haddii ay taasi dhicin doodu waa adkaan lahayd. laakiin mar kale arrimaha dastuurka oo soo cusboonaanaya ayaa noqonaya walaaca kale ee mucaaradka hor yaalla. lama oga filashada doorashooyinkan iyo waxa ka iman kara laakiin qubarada siyaasaddu waxay leedahay ma muuqato miro dhal wanaagsan inay ka soo bixi karto taas oo haddii ay dhacdo kulamadan in aan la isku fahmin ka dhigi karaysa ragaadka siyaasaddu in uu sii fogaado. soo dhawaada. ma ogtahay in dhakhtar Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka. maalin waliba wuxuu heega kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar